kaaga gargaara ilaahay kaaga gargaara stage samir muuji inaan samirta muhiim stage waxaan ku sugannahay guriga caabi jaamac raage jaamac humbur ku magac dheer ku yaala gudaha degmada Gurceel gaar ahaan xaafadda Waabari sidoo kale waxaa gasna goobta nagula sugan aadan jaamac caabi raage oo ah wiil Soomaaliyeed kuna sugan gudaha degmada Gurceel oo aan la yeelan doono wareysi dhinacyo badan taabanaya oo khuseeya xaaladda soo daristay dhankooda nololeed iyo sidoo kale xaaladda guud ee caafimaad ay ku nool yihiinba inta aanan falaqayn qoyskani waxa ay la kulmeen dhacdo aad cajiib u ah oo ah in la faquuqay aadan jaamac caabi raage oo gabar ku guursaday gudaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud kadibna aabihiis markii uu si galiina uga tagay qoyska wiilkiisu gabadha ka guursaday ay ku yiraahdeen erayo aan ku haboonayn oo ka mid ahayd inay dhaheen gabadhaan uma qalanto wiilkaada taas oo u dhiganta in ay faquuq u taagayeen qoyskan Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waa dhacdo dhif iyo naadir ah inay ka dhacdo gudaha dalka laakiin hadda waxa ay ka dhacday gudaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud qoyska faquuqa lagu tilmaamay ayaa inoo suurta gashay inaan soo booqno hoyga ay ka degan yihiin degmada Gurceel oo kula yeelno wareysi taabanaya xaaladaasi laga soo sheegay qoyskani waxaan ugu horeyntii wareysiga ku bilaabi doonaa jaamac caabi raage oo halkan ku sugan oo ah wiilka gabadha guursaday kadibna markii sida galiinka ah isaga iyo aabihiis oo isla socda ay u tageen qoyskii gabadha ay ka guursadeen dhacdada ay kala kulmeen ayaan kala sheekaysanayaa aadan ku soo dhawow warbaahinta aadan caabi jaamac liiraa waa gartay aadan waxaan halkan kugu imaanay inaan maqalnay dhacdo ah gabar aad doonteen adiga aabaha kadibna gabadhii la idin diiday arinta maxaa ka jira arintaas waa jirtaa gabadhiina waa nolol diiday sooriyadina waa laga qaadan waayay xooga yaro ficilana waa lagu sameeyay waa gartay marka maadaama sooriyadiina la inka qaadan waayay ficilna la inku sameeyo ficil aad ka dhawaajis maxay ahayd sababta markii aad iswarsteen adiga aab wuxuu yiri waa ka soo tagnay asaga u laabamayno hadii saas ay jirto markan ka soo tagnana waa ka soo aamusna marka adoogayo ka itimaha noo yimid wax aan muslimka aan sheegi karin uu sheegay marka waa ka aamusnay waana uu naga tagay waa gartay markaasi odagu idin yimid ma wuxuu in kala hadlayay xaalad deganaan ah oo in la dejiyo ah mise wuxuu in kala hadlayay xaalad si qasaysay jawiga aad ku jirtaa gabadheeda saad u guursato wuri aniga waa ii hanjabay hanjabaadiisi marka maxaa kamid ah haddaad qabto wuri ada god inaad u hoyay oo taas u dhigantay inaan ku dilay hay had kuwa qabiilkaada xad u guurso weydo waa gartay marka aadan maadaama gabadhay adiga aad guursateen gabadhay adiga raalli baa iska ahaydeen Soomaa oo si jacayl adinka baa is jeclaado isaan indhahayga waa ka jeclaad waa gartay marka adiga maxaa kula soo darsay maadaama aad xaaladaas la kulantay anigana lagu hanjabay waa iska aamusaad lagu yiraahday qof oo macnaha aad loo faquuqa aad tahay aad kala kulantay waa iska aamusaad waa iska aamusay mana la caytimin afkaygan ka xirtay waa gartay gabadhii hadda miyay joogtaa Kenya jirtaa gabadhii Kenya maxaa loo wada sababta maxay tahay gabadhayna midgaan uma rabnaa liiri aniga xoogay wuxuuma la sameeyay waa gartay marka gabadhii hadda Kenya ku sugan tahay Kenya ku jirtaa Kenya joogtaa ku soo wacdaa lamba habarteeda habeen hore soo wacday waa la hadlay waa imaaha ay tiri markii kadibtay hadda lambarkeeda lama heli karay hooyo markaas maxay kala hadlaysay maamada gabadha dhashay waxay tiri waa heshiihayna say ii tiri lambarkeedii ima soo wacay daraadtii ku horeeyay igu dambeeyay hooyadu marka ayaduna hanjibaaday wadaa hadda marka maxaad jeclaan lahayd inaad bulshada la wadaagto waxa ku daawanaya bulshadii Soomaaliyeed oo dal iyo dibad meel walba ay joogaan ku daawanaya maxaad jeclaan lahayd oo u jeedin lahayd bulshada Soomaaliyeed islaanteedii weli lahaayaan ka rabaa inay kala shaqeeyaan igala shaqeeyaan Kenya joogtaa abartu qaxootiga ku tahay waana lii diidan yahay kuuri duqayeeyo halkan joogtana xoogay ficil xumay ugu sameeyay markaan aan akmar indhahay ugu gubay wiil la dhashay ila dagaalay bis oo gabadheena saad u goy kartaa waa gartay manasara liira hadda Gurceel ku sugan yahay isagana dagaal gacan ka dagaal uu soo qaaday halkaas garabka iga saaray lama dagaalin waa ii xirneed aniga shib waa ka aamus
waxaan idhi seediga hala dagaali. dhacdadaas marka xaggee kugu qabsatay mugdiga mise waxay igu qabsatay magaalada ay igu qabsatay agteeda meeshan degmada gadaasheeda igu qabsatay. waa gartay adoogan soo wacay saasaa igu dhacday hala dagaali hay marka saasaan nahayd annaka. marka faquuqaasi miyuu hore u dhacay mise waa mid hadda cusub weligeedna waana lagu hayay faquuqaas oo la idin leeyahay mid ma geedin gabadhayda hadda waa tan dadku waa isdhex galay. walaalow anoo kaligeeya oo qof ila soconaan waxaan u imid duqii awoowaha u ahaa gabadha. waa gartay aabbaheedna uusa joogo. waa gartay markaan u imid waxaan idhi waa aan toosiyey waxaan idhi war ii waran waxa dhacay ma maqashay waa maqlay yiri niyow galiimaan ka wadaa samafalaan ka wadaa waxaan ka wadaa sidii Soomaalida qaynuunkooda ahay inaad ila hadasho aan rabaa. markaan idhi wuxuu yiri hadal hadda ma furna. hadal hadda ma furna. dad wada hadlay ama wax kala qaatay waa dad heshiisahooda. waa gartay dad wada hadla ama wax kala qaataa waa dad heshiis. waa gartay heshiisna maahin nabadna maahino. waa gartay qaab anigu haddeer aan wax kaaga qaado ma garanayo. waa gartay taas wuxuu iigu daray gabadhu ma xirna. gabadhu ma xirna wuu iigu daray. waa gartay gabadhu ma xirna markuu yiri waxaan tegey wiilkaan u imid waxaan wadaadkii gabadha xiray ii keen. waa gartay wadaadkii gabadha xiray aan ii keenay siyaadna waan u yeeray odagii waan u yeeray waxaan idhi bal sheekow wixii aad xirta hadday baadil ahaayeen duurka ilaahayaan maraha ii sheegaan oo shareecada aysan waafaqsanayn. waa gartay wadaadka gabadha xiray culummada Gurceel joogta wadaadka ugu intiraafka badan waa gartay marka adiga aad raadinayso marka wadaadka waxa kugu kalifayay inaad aabahaas aad sheeqi gabadha xiray raadisay inaan qanciyo aan raadinay qoyska gabadha. waa gartay wuxuu yiri wadaadkii waa la hadlay wuxuu yiri siyaad macnaheedu qowey gabadhaadii heblaheed ninkii xiray aan ahayo. waa gartay la xidid ninka dhacdadaas kale mar waa u kurgalaynaa tanaan ka dhammaanaynaa. marka maadaama aad tiraahday sharci islaamna na kala geyn maayo oo dad walaala wada dhashabaana maxay kugu jawaabeen qoyskaas? maxay ugu jawaabayaan gabadhiiba waa dirnayaalay. gabadhii xaggee loo diray? Kenyaan u dirnayaalay. Kenya ku suganta. haye marka aabba Soomaaliyeed da ahaan imse baa jirta? 50 aan jira aniga. 50 sano marka xageed ku nooleed? 50 sano Gurceel aan ku dhashay. Gurceel aad ku dhalatay? wararkaana waa maqli jiray laakiin nin baraf karaya ma ahayno askariyan ahaayeen. waa gartay ciidamadii Maxamed Siyaad Barre aan ahaa wax baraf karayna iyo wax yacni qadarina oo kelmadan aan kulahay ma jirto. marka muddo dheer aad Gurceel ku sugnayd? muddo dheer aan ku sugnayd. waa dabcan wiilkaana waa ku dhashtaan filay. waa ku dhashaa intaas aad ku soo aragtay? ayadoo culummadii u qaadayda sharcigaas soo istaag mid waa lagu xoogay waa dhacdadii saddexaad waaye mid waa lagu xoogay oo dadkan adarista midna waa midaas ninku isku xiro sheeqaaho oo laga furo meeshaan xeer ku haystaa. waa gartay marka tan waa tii saddexaad. adayna ku qabsatay? anay qabsatay waxa ila soo dirsay anigu kelmadaha ay sheegayaan dadkan saddex niman u aqaan. waa gartay saddexna nin aan u aqaan ninka dariiqa oo taagan laamiga oo naagaha xooga oo dadka wixiisa cuna oo dadka dhibaateeya midkaan dhalaan u aqaanan. ninka ilaahay inta hanti siiyey karfantii 4 waareed aan looga gadayn ee culummadu iska wareysanaya aan u gadna ay leeyihiin midkaan dhalaan u aqaanan. waa gartay ninka ilaahay wajigiisa ku ceeboobana midkaan dhalaan u aqaanan. waa gartay ma garad marka walaale arintan waxaan u bandhigayaa ummadda aqoonta leh ama culimo oo diinka ama dadka barofesorada ama dadka islaamnimada xabiibka u ah aan u bandhiga. dabcan intii aan waraysiga ku guda jirnay waxaa isbedelay jawiga aabe jaamac raage oo aabba Soomaaliyeed ah wuxuu la ilmeeyay dhacdada ku dhacda xanuunkeeda iyo sidoo kaleete sida faquuqa loogu sameeyay. intii aan waraysiga ku guda jiray wiilka iyo aabihiisba waxay ii sheegeen inay arkeen in hanjabaad loo gudbiyo loo dhaartay la yiraahday noloshiina qatar la gelinaya.
kasokow aabuhu wuxuu caloolwey waxa uu aad ula calool xumooday ama dhibaya saad u jeedaan badawadayaal waa xaaladda oo kula kulmay gudaha degmada Tani Gurceel ee in qoys Soomaaliyeed lagu tilmaamo gabadheena ma guursan kartaan ma xiran kartaan erayadaasi oo noqday mid aabahani Soomaaliyeed oo la ilmeeyo ama qulubtiisa ama qalbiyanba oo ku ooyay qalbiga adiga daawanaya ama midka Soomaaliyeed ee gaariga muuqaalkaanba waxaan inkugu soo gudbinaynaa inaad aabaha Soomaaliyeed aad u jeedaan sida xaaladiisu ay tahayba inaad u gurmataan oo aad uga hilisaan midka aaminsan inuu ka weyn yahay Allah subhanahu wa ta'ala ayaa weyn qof bini aadan ah waa qof la abuuray oo bini aadan ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu caabudo loogu talagalay ma ahan in midka Soomaaliyeed ama walaalka muslimka ah ee dhiban ee dhibaatadu haysato lagu liido waxa lagu hormar lagu gaari karaa iskaashina lagu gaari karaa diinteena macaan ee suubanna inoo sheegaysa in aan midkeena liita caawino si aan ugu baxsano maalinta yoomul qiyaamo oo ogtihiin in xaalad adag la galayo maalintaasna wax walba oo samayso ama aad maalintaas la timaadina aysan ku suurtagelaynin waxa aad ku badbaadaysaa ay tahay camalka suuban ee samaysatay inta aad ifka joogto aabahani Soomaaliyeed aad u jeedaan walaalaha Soomaaliyeed waxa uu ku dhiban yahay gudaha degmada Gurceel waxa uu u baahan yahay gurmad inaad garab istaagtaan midka dulmiga ka shaqaysiinaya ee ka oysiinayana aad uga hilisaan haddii ay isku hiliyaan walaalaha muslimiinta ah ayna iscaawiyaan waxay noqonaysaa mid Ilaahay subhanahu wa ta'ala aqraya adduunba ay ku liibaanaan walaal waxaan inka codsanayaa inaad muuqaalka gaarsiisaan walaalaha Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah ee ku sugan dunida dacaladeeda ee ka damqanaya dulmiga iyo dulmi kalkaalka isu kaashada qoyskan Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha degmada Gurceel